السلام عليكم أصحاب شرفت له كسر هذا مركلي موضوع يعني مانتا وحن كحل دونا طبعا الريموت طبعا شيء ولو باهي هاي إن تقفنا لو ذاقن طبعا شيء ولا الربو إن لو ذاقن قفنا طبعا كالشيء وحكم ده كو إحسان كتقف السميس إحسان كتقف السميس إحسان كتقف السميس وحان أولجينا wax wanaagsan oo aad qof u sameysay tusaale ahaan inaad qof caawiso inaad qof ihsaan u sameyso inaad qof maxal dhig jiray aad wax siiso marka arintaasi qofnaha u sheegin sababtoo ah arinta muhiimada loo sameeyo waxay tahay inaad bulshada loo tuso naxariis in la tuso midnimo laakiin haddaad u sheegtid waxa sameysay qof kasta aad ugu sheekaysid taasi waxay u horseedaysaa wax micno weyn ay sameynayso malahan dhibaato un bay dadka bulshada ay u horseedaysaa marka waxa wanaagsan in arinta qof ihsaan ah u sameysay inaadan ka sheekeyn ayaa aad wanaagsan mid labaad waxay tahay tabardaridaada ama xumaantaada weligaa iska ilaali inaad ka sheekaysid xumaantaada khaaska adigu ah iyo tabardaridaada sidaan ognahay qof kasta oo bani aadana wuxuu leeyahay xumaan iyo tabardarri ayuu leeyahay marka ma wanaagsano inaad ka sheekaysid xumaantaada sababtoo ah tan waxay noqon kartaa arrin khatar ku ah noloshaada soo dadka qaar ayaa jiro markay arrinta ay xumaantaada u sheegayso waxay ka dhiganayaan wax lagu qoslo ama wax lagu caayo ama wax lagu dacaydeeyo marka ka fogow inaad sheegtid xumaantaada iyo tabardaridaada inaad qofna u sheekaysid mid saddexaad sirta dadka kala dhaxayso iska ilaali inaad ka sheekayso ama aad u sheegto qof sir qof kale ku sheegtay waa arrin dhibteeda leh sababtoo ah qof ayaa sir kugu aaminay saaxiib ayuu ka dhigtay marka waxa sirtiisa inaad faafisid arrin aan fiicneen marka waa laga fiican yahay arintaas inaad marka qof u sheegtid marka waxa wanaagsan inaad sirti lagu sheegtay lagu imaado ha ka sheekeyn weligaa sir asxaabtaada ha u sheekeyn sir saaxiibka marka waxa wanaagsan sirtan haday tahay sir familkaaga ku saabsan ama saaxiibkaada iska ilaali inaad ka sheekaysid mid afraad dagaal ka jiro qoyskaada dhexdiisa qoyskaada dagaalka ka jiro dadna ha ugu sheekaynin sababtoo ah qoyska waa qoyskaada dadkaas iskama lahan arintaada u xalli si wanaagsan hadday dhib kugu hayso ka aamus balse dadka hala wadaagin taasi waxay sii kordhin kartaa dhibaatada qoyska dhexdiisa ka jiro marka waxaa wanaagsan inaadan qofna ugu sheekaynin arrimaha qoyskaada weligaa isku day inaa adiga kugu ekaadaan ha ka sheekaynin dhibaato kastoo ka jirto qoyska ha ahaato arrin khaas ah arrin private ha ahaato weligaa banaanka ha keenin midda shanaad arrimaha khaaska adiga iyo qofka is jeceshiin marka arrinta khaaska waxaan ula jeednaa arrimaha idin private idin adiga iyo qofka is jeceshiin weligaada ha ka sheekaynin arrinta jaceylkaaga amase jaceylka qofkaad jeceshahay idin dhexeeyo mise qoyskaaga qof ka mid ha noqdo laakiin arrinta privateka midda shanaad arrinta adiga iyo qofkaas jeceshiin arrinta lamaanaha keenina bulshada sidaad la socotiin arrimaha lamaanaha beryahan social media ku batay qof kastana wuu ogyahay dhibaatada ka haysato familada marka ma wanaagsano inaad arinta adiga lamaanahaada aad keentid social media ama meelaha baraha bulshada ama se dadka aad ugu sheekaysid ma wanaagsano aad ay u xuntahay arrin dhibkeeda leeyahay marka iska ilaali weligaa inaad arrimaha noocaas aad keentid mise aad ka sheekaysid banaanka aad keentid midda lixaad guusha rabtid inaad gaartid qofna ugu sheekaynin sababtoo ah dadka ugu sheekaynaysa ayaga dhan maahan saaxiibo dad ayaa jiro ka hor imaadsan inaad horumar gaartid marka iska ilaali inaad ka sheekaysid guusha rabtid inaad gaartid ha ku ahaato arrin qarsoon
arrin qarsoon intaad ka gaaraysid ha sheegin arrintaas, ha ku ahaato arrin khaas ku adiga. midda toddobaad, diintaada weligaada ha ka sheekeynin. diintaada ha ku ahaato arrin adiga iyo Allah subxaanahu wa tacaala idin dhexayso. ma wanaagsan inaad diintaada ka sheekaysid. diinta dadka u sheeg, balse diinta adiga aad leedahay weligaada ha ka sheekeynin. tusaale ahaan, hadhiin aniga qof cibaado badan baan ahay, qof diinta ku dheereeyaan ahay, qof qur-aanka xifadsan baan ahay, qof cilmiga kor ka hayaan ahay. markaas waxay kaa noqonaysaa status bay noqonaysaa. marka ma wanaagsano weligaa diintaada ha ka sheekeynin. ha lagaa sheekeeyo laakiin adiga ha ka sheekeynin. midda 8aad, xiriirkaada hore ka fogow inaad ka sheekaysid. waxay keeni kartaa dhibaato kaa qabsato familkaada, dhibaato kaa qabsato xiriirka markaasi aad leedahay. xiriirka hore markaan leenahay wax hore lasoo dhaafay already. xiriir aad marka aan leedahay maaha. so waxaa laga yaabaa inaad leedahay xiriir markaasi ah, mase aad raadsanaysid, ama ugu dambeyn waad yeelan doontaa, sababtoo qofna ma jooga keligiis. marka haddaad xiriirku soo maray, iska ilaaw oo siduu kuu dhaafay u dhaaf. ha ka sheekeynin. wuxuu dhibaato u keeni karaa qofka markaas aad xiriirka idinka dhexeeyo ama nolosha aad la wadaagtay. markaad ka sheekayso wuxuu dareemayaa qofkan inaad ku qanacsaneen, inaad noloshiisa ku qanacsaneen, inaad jeceshahay qofkii hore, inaad rabtid inaad ku laabatid qofkaadii hore. marka iska ilaaw inaad ka sheekaysid xiriirkaada hore. nambarka 9aad, xaaladda dhaqaalahaada xaaladiisa, waxaad haysatid yaan ula jeednaa. marka dhaqaalahaada ha ka sheekeynin. haddaad tahay qof wax haysto ama haddaad tahay qof waxaan haysan wax yar iska haysto, laakiin ma wanaagsana labadaba inaad ka sheekayso. haddaad wax haystid, nasiibkaada iyo dadaalkaada iyo maxaa la dhihi jiray waxaad ku heshay, ilaah oo manaha kugu garab siiyey. haddaad wax haysanin, maxaa la dhihi jiray ayadana waxay leedahay dhibaatadeeda, laakiin waxaa waa amar alle iyo waa iska imaan doontaa inaad wax heshid haddaad nooshahay. balse maxaa loo baahan yahay weligaada arrimaha statuskaada ha ka hadlin. financial statuskaada iska ilaali inaad ka hadashid, sababtoo ah dadka aad wax u sheeganaysa maahan dad ayaga dhan maahan dad kuu naxaayo. haddaad wax haysanin maaha qof kasta inuu ku coloolo jilacsan yahay maahan. haddaad wax haysato qof kasta inuu kugu faraxsan yahayna maaha. dad baa markaad wax haysato ka naxaayo, dad ayaa ka xumaanayo inaad adiga wax haysato maanta. marka maxaa kula gudboon inay arrintaasi khaas ku ahaato, private ku ahaato, qofna ha ugu sheekeynin. midda 10aad, arrinta 10aad oo u dambeyso, pointiga 10aad oo u dambeeyo wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha muhiimka aad haysato. ha ka sheekeynin. waxyaabaha muhiimka maxaan ula jeednaa? waxyaabaha muhiimka aad haysato waxaan ula jeednaa hadday tahay maxaa la dhihi jiray guryo aad leedahay, dahab meel kuu yaallo, diamond meel kuu yaallo, lacago bangi kuugu jiro. marka alaabaha muhiimka aad leedahay weligaada qofna ha ugu sheekeynin. waxyaabaha muhiimka aad leedahay weligaada qofna ha ugu sheekeynin, sababtoo ah taasi waxay dhalin kartaa noloshaada ay khatar gelin kartaa. markaad ugu sheekayso qof ama qof kale dadka qof ka mid ayaa minaha dadka dhan ma wada wanaagsano. qof xun ayaa jiro. mar qof ayaa si qaldan u fikiri karo, marka wuxuu is dhihi karaa qofkan kaale ka dhac xoolahaada in la dhaco ayaa la isku dayaa. waxaa la isku dayaa in xoolahaada laga dhaco. dhibta ayaa keenay, adiga ayaa isku keenay, ayaga ayaa arrintaada dadka u sheekeeyay, amase qof ayaa cudurtinimo kuu qaadayo. markan adiga ayaa nafta lagu dhaafin karaa. marka maxaa kula gudboon waxyaabaha muhiimka ah oo adiga aad leedahay weligaa qofna ha ugu sheekeyn.